السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديان ميل كستو دادونك كجوجتان حلقنا aad ka daawanaysaan barnaamijkan markale waxaaynu ku kulanay barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo isagoo ah qaada dhigaynu kaga hadalno arrimaha fanka iyo suugaanta la xiriira iyo waliba sidoo kale dhaqankuna u dheeryahay toddobaadkan barnaamijkan waxa marti noogu ah abwaan in badan oo daawadayaasha kamid ah ay naga codsadaan inaanu mar kale ku soo casuuno barnaamijka fanka iyo suugaanta waa abwaan xasan daahir ismaaciil weersame ma aha markii ugu horeysay Home Cable TV studio-hiisan magaalada Hargeysa uu soo marti qaado hase yeeshee waa markii ugu horeysay ee suugaan aad idinku soo dalbateen bal siday ku timi iyo siday tahay iyo waxyaabaha abwaanku uga gol lahaa aanu markaa ku soo bandhigno oo aanu halkan idinku weydiino ee wax badan kulay su'aalo badan oo isweydiinayseen waan rajaynaya inaan ku wareysan doono abwaanka oo markaa caawadigana shakigaasi ka bixi doono waa ku soo dhaweynaya weersan waan dhawahay waad maasantahay nimaa waan ku faraxsanahay marka la studio-ha inaynu ku kulannay ana soo kale waan ku faraxsanahay adigu adigii u weeyaan shakhsiyan laakiin suugaanteenu wadno ayaa cusub oo wixii hore ka duwan hadiya jeerna barnaamijkan waxaan ku salaynaa dadku iyaga inta badan naga soo codsada lagu raahdo fanaankan noo keena abwaankan noo keena adigana dadkaas aad kulli ka mid tahay ay daawadayaashu xiiseynayaan anigoo aad iyo aad ku soo dhaweynaya barnaamijka fanka iyo suugaanta kugu soo dhaweynaya bal waxaan isku dayi doonaa inaynu xabad u dul istaagno suugaantaada hadday noqoto qaar kamid ah gabayadaada iyo qaar kamid ah heesahaaga bal hees baan jeclahay inaan heesta koowaad ee barnaamijka aan ku bilaabayo ka dhigo ee aan dadka hor keenayo hase yeeshee intaanan daawadayaasha heesta hor keenin dee warshadii heestu ka soo baxday ayaa caawana ag fadhido adiga ah ruuxdayda iyo maanka uma roonid kaa raystay kuma rabee hay raafin ee heesta hay raadsan bal waxaan jeclahay weersamo waliba su'aalo kaloo heestaa la xiriirana waan ku weydiin doonaa hase yeeshee bal heestu siday ku timid iyo ujeedadii adigu markii aad sameynaysay adiga ah qofku ugu xogogaalsan heestaasaan bal jeclahay horta hay raadsan waxaan sameeyay muxuu ahaayay sanadii barka warba sameeyay marka sidaa adigaba heestaasu dadweynahana ay muxuu ahaayay buuqa ugu tahay cid waliba ay doonaysay inay muxuu ahaayay heestaasi ogaato sababtii loo sameeyay iyo ujeedadii ka dambeysay ayaana heestaas sound dhib igu tahay wali ma arag hees aan leeyahay oo heesta igaga saameyn badan yaani feedback ka soo noqday heesta hadaanan ilaahay ka cabsanayn oo aan jecelayn inaan been sheego heesta sheeko qurux badan baan u sameyn lahaa laakiin se muxuu ahaayay ma jecelayn inaan bulsho weyn inta leegan been u sheego macna fara badan dee iga soo gali maayo heestaasi muxuu ahaayay waan mala awaalay oo waxaan ku mala awaalay heesta maalmaha kamid aan raadiyo Hargeysa joogay niman saaxiibanaho Sadiiq Maxamed Burmad la yiraahdo aan ugu tagay raadiyo Hargeysa dabeetana galin dambe ayaa muxuu ahaa aan halkaasi Sadiiq in cabaara aan la joogay waqti waxay noqotay sagaaladii habeenimo markay sagaalkii habeenimo noqotay saacadu ayaan jeclaystay inaan iska soo lugeeyo raadiyo Hargeysa iyo xiraawr halkan galiyay inta u dhaxaysa waan soo lugeeyay dabeetana heesta igu soo dhacday dabeetana ruuxdayda iyo maanka laxankan heesta dabeetana ku helay bila sabab gartay iyadoo aan jirin sabab alla sabab heesta aanu sameeyay dabeetana inta qalcada ugu horeysay heesta ayaan ilaa intaan guriga tagay ku soo celcelinayo dabeetana waan iska soo weeshaday dariiqan iska soo maray markaan sidii dariiqan isaga soo maray baan guriga markaan imi ayaan dabata heestii ka fikiray qalin baan dabatana qaaday ruuxdayda iyo maanka uma roonid waan qoray waxaan arkay inay heestu tahay hees ka duwan muxuu ahaayay heesihii aan sameyn jiray isla markaana hees ka duwan badihii aan laga sameyn jiray inta badan suugaanta Soomaalida waan gartay heestu waxay isugu jirtaa laba qaybood ruuxdayda iyo maanka intaas waxa weeyaan muxuu ahaayay waa heestii caanaha caadiga loogu luli jiray deeshii buro ay baxdiya barigana waxa laga dhahdaa deeshii qabay qooriya galbeedka deeshii buro ay baxba laga dhahdaa laakiin se waxaan xagga dambe kaga daray uma roonid ay raafin ay riiqin rara awrta inta yar baan ku darayba dabeet waxaan arkay inay heestu tahay badihii maansada Soomaalidu taqaanay godadkii laga sameyn jiray maansada heestii caanaha oo in yaroo naqano lifaaqa uun le
ay noqotay mana aha markii ugu horeysay abwaana kale igu horeeyo saasoo kale uga sameeyay tacaanaha inay ka sameeyeen ma laakiin badaha kale sida muxuu ahaa heestii muxuu ahaa nafu jacaylsan iyadoo seeman selashoon hurdada seexan intaas lagu dardaray dabeetana waan sameeyay beedka horu ma sameeyay heesta ma jirta sabab alla sabab muxuu ahaayay de waan heesan isaga soo maray bay ahay dariiqan isaga soo maray ma ogtay iska soo weeshaday dabeetana beedka horaan sameeyay markaan beedka hore sameeyay baan galikii dambe raadiyo Hargeysa tagay ninkii Sadiiq baan isaragno xalay heestan sameeyay baan ku laxankana waan sameeyay laxankii baa cajabiyay war laxanka qurux badan dabeetana laxankii wala dhacay markaasaan ku naga daa badahayaga anagu ma yahay inan baa la eriyay hay wax la eriyay shaqo kuma leeyahay ma jeceli wax la eriyo hay dabeetana waxa dhacay inuu Sadiiqan ka furfuri kari waayay heestii ilaa heestaa soo saar sanad iyo barbaan heestiisii ku hayay malaha 5 fanaan baan heestaa u dhiibay fanaan waliba no dad forjada imku way necab yihiin hay waxaan kale jacayl kale gartay fanaan waliba way ixtiraamaa way ka qaadaa hoostu iska dhigaa ya gartay dabeetana waxa dhacay mursal ayaanu kulanay intaanaan mursal kulmin baan beedka labaad ku daray heesta markay sanad iyo waxa ka soo wareegay beedka labaad ku daray heesta sababada riyaaqina iyo reenkadan wasal iyo rakaad beena u raxlaynta ilmo dhamar rusheynaysa sida roobka nin rumaysta bay dumar rabaystaan markaan beedka labaad ku daray mursal baan is aragnay mursal yare dabeetana mursal baa aan isbaranay markaan isbaranaan ku mursalow codkiisaan arkay dabeetana mursal cod fiican yahay waxaan ku wari hees muran badan dhalin doonta adiguna aad ugu qarxi doonto ilaa xad ayaan ku dhiibayaa dabeetana Axmed Weli baanu habeenada kamida oo gurigiisa tagnay heestii baan mursal sidii ugu dhiibay laxankiina waan u hayay Axmed Welina wuu tumay isla habeennimadii baa la tumay sidii bay heestii ku soo baxday heestii ha soo baxday mar alla markay heestii soo baxday ayaa buuq cirka isku shareeray dabeetana habluhu way kolkiiba heestii kaar casbay dhiibeen habeen kaliya kan 402 message aan u tagay emailkayga 402 message oo 402 message ba hablaa dhammaantood waxay ka siman yihiin shoobaro hay in heesta ka cabanayaan mar baaba mudaharaad haweenku lagu dhigi gaaray waxa intaas u dheeraa sababtii baan wali la ogaan dadku sababtii aan heesta u sameeyay lama ogaan waan gartay sababo fara badan oo qaarkood aad xasaasi u yihiin baa heesta ka soo noqday hay habla la garanayo ayay dadka qaar kolkiiba yiraahdeen heblaaya loo sameeyay iyo heblaaya loo sameeyay suuqii Hargeysa ba warkii galay dabeetana warkii baa isagoo socda aniga yimi gartay tiyo aani jirin inan heestaasi haba yaraatee meel labada shaqo ka gale waa waxaas u aan mala awaalay diiwaana dhacdaa abwaan wax mala awaala oo inta sawro bixinaya dabeetana hadii aanay jirin xitaa cid anigu hayraadsan aan ku leeyahay qaar baad hayraadsan isla moogtay kolka lama oran karo markasta adigu waxaad u xidhan tahay oo khafis yar ugu jirtaa inta adiga ku qosaysa uun laakiin se qaar kala ay hayraadsan le hablaad qaar inama ku hayraadsan inama iyaguna habla ku hayraadsan waana wax nolosha ka jira oo noloshu deesmus ma aha oo ma aha uun waan ku jecelahay ana ka daranayo waan ku baqtiyaa intan uu demo noqonaysa kol kasta waxa jiray laga yaabay in rag badan daweysay oo ay heestaasi marka iyagu bay ka ta kala waxa ay heesta ku jirtay muxuu ahaayay oo raaliyaan helay awrta hablii baan su'aal baan hadii jeer weydiin wax ku dhaa inta tala eriyo la dudayso ta lagu faraxsan yahay miyad iskala damaashaad adiga ku dawriyiga waa inta si taas adiga noqotay raaliyada aad iskala damaashaad horta waxaan ka sheegi lahaa oo cadayn lahaa heestani inaanay haba yaraatee gabar Soomaaliyeed iyo tu Carabiyeed iyo tu Ingiriis iyo tu noocay doontaba ahaatee inan ku jirta oo shakadaas qusaysa haba yaraatee ma jirto waa tahay waxa kale oo heestan jirtay in imika xilliga shanaad iyaga loo qaaday heestan sida de xagga laga aaminsan yahay xilliga oo dadkii baa oranayo u fasiranaya in loo fasiray iyo in sidan loogu dhigay ma kala garanayo waayo anu weligay xilliga ma tagin waxa la yiraahdaa heestan maadaama mursal iyo gabadhiisa oo khadra iyo Axmed Weli oo demisigii tumayay saddexduba ay ka yimaadeen reejiga ay haayeen fanaaniinta halka joogtay ay haayeen oo imika halkan ay joogaan ayaa looga dhigay in muxuu ahaayay meeshii ay ka tageen ay caayaan iyadoo aan jirin sabab la sabab ay ku caayaanba dabeetana weersama uga warrameen sheekada weersamana dabeetana wuxuu ku oo miyad hay raadsan ba tiraadaan
imika kililka ilaa anigii baa intii ka galayba taasuna iyaduna ma jirto oo sanad iyo bar ka hor intaan mursal aanan isbaranba oo aan isaqoon iyada khadradda waan isnaqaano isku galaas baan ahayn markaynu intermediate ka dhigan jirnay isku fasal baan ahayn laakiin se mursal iyo axmed weli ismaan aan aqoon markii aanu de heestaan sameeyay midkoodna kolka iyagana waxaan ka baraxayaa inaanay heestaasu boqolada xililku haday saa u qaadatay aanay heestaas meel laba aanay iyaga ka qusayn laakiin se hadduu qof war xumato shil saa ugu dhigay muxuu ahaayay taas ma jirtaan leeyahay aniga daymka cadaynaya laakiin iyaga qudhooda ma la oran karaaba warkan xataa in sida loogu dhigay qudhiisu dadku waxbay sawiran karaan in warka xataa ay been ka sheegayaan oo aanay dee jirin in la oran karo sidaas way jirtaa horta sababtu way jirtaayo imika xililka hadda jiga qofka jooga dadku soo wada xidhanaya Soomaalidu kulli ma kala xidhna wadamo kala duwan bay Soomaalidu kala joogtaa laakiin saddeed dadku waa gacal iyo walaalo wal inta wala isku soconaya halka muxuu ahaayay waxa halka ka jira iyo waxa Hargeysa ka jira wali iswada og yahay moogtahay dabeetana way u jiraayo dadka warka saas iyo wala galiyay halkaasuna way jirtaan laakiin say warkaas isaguna ma jiro oo de waa waxaan horta had iyo jeer waxa laga aamini karaa abwaanka marka laga yimaado xataa fanaanka abwaanka qofka kaliya ee markuu miro sameeyo de in laga rumaysto ay tahay waa qofka sameeyay waa isagiiba de waxani ka soo baxay marka de taa u dambayso baa la qaadanaya ayaa sanad u sameysay waxa iyadu jirta heesta qudheedu intaynaan dhaafin jawaabo badan ayaa loo soo sameeyay YouTube ka markaad gasho website-yada aad eegto la leeyahay waa heesti loogu jawaabay hayraadsan waa heesti loogu jawaabay hayraadsan kuwa qudhooda sidoo aragtay horta muxuu ahaayay hees kala la yiri hayraadsan laftigeeda la yiri waxay jawaab u tahay hees ay qaado fanaanada Soomaaliyeed xawakiin la yiraahdo waa hees la yiraahdo higa roorin heesan jecelahay anu labada taasan jecelahay ba gartay oo dheerigeedan isku fiicnayn wax la yiraahdo waay muxuu ahaayay higa roorin waxa iigu horeysay markii ugu horeysay inuu YouTube ka arkay ayaan ku arkay jawaabtii xawakiin hayraadsan fiyo lagu qoray markaasaan isweydiiyay war adigu cid baa uma jawaabayne kala maxaa looga jeedaa dabeetana horta kolkiiba level baa la sameeyo waxa lagu level gareeyay hayga roorin iyo hayraadsan maadaama ay isku xaraf raac yihiin inay labada heesood ay isku jawaab yihiin kolka waxa kaloon ku daraya iyadana intii hore heesta xawakiin jawaab uma aha oo waxba iigu horeysay heesta xawakiin markaasaas YouTube ka dadku isku soo qaadeenay islabadoodii isku geeyeen waxa isoo gaaray oo ama email la igu soo diray ama wall Facebook oo kale la ii soo dhigay ilaa 6 jawaabood oo heestaasiya heesta ugu midhaha quruxda badan leh waa ta ugu cayda badan lahayd salahaan oo kale muxuu ahaayay raganimada iyo raaxo kuma roonid rubac qaade iska ruuge macay noocaasi heesta marka dhinac ka eegto badii heestaydu ku dhisnayd bay ku dhisan tahay qof waliba aad aftahan waaba sameeyay laakiin muxuu ahaayay in ay ku yirtay yidid moodaa waxa hayriiq inta kale la yiraahdo habeen dhaw ayaan habeen hore arkay iyadana oo gabadh qaadaysa iyada waa la qaaday hayriiqin oo iyaduna ay leedahay maxay waan ku soo raadsaday qofku rabuu raadiyaa halka hayriiqin waa jawaabtii hayraadsan baa iyadana leeyahay jawaabo kale oo iyaguna qoraalana waan arkay moogtahay muxuu ahaa ma aha wixii uu horeeyeen sameeyay jawaabo laga sameeyay laakiin se waa heestii uu horeysay ee jawaabo laga sameeyay ee buuq fara badan dhalisay ee dad aan ku jirin lagu sheegay kolka horta heestu waa mala awaal gartay ninkii la oran jiray Albert Einstein scientist-ka ahaa physicist-ka ahaa ayaa wuxuu yiri imagination is power than the knowledge imagination يعني ملا أول كوك أود بدن يهي أقانت عادية وأي يروح كجا أود بدن يهي أقانت والليمت واحد دنت وما أوتيتم العلم إلا قليلا ده أقانت أنت اللي دسيه ويقابنت هدي لهي بينسيه لكن سملا أول كاجا واحد تصوران كرتها الدنيا كلا يعني الدنيا كلا أنا تشوفين أيات تصوران كرتها طيب تنقف كبناء آدم كي imagination واحد لوده جد وين نايموتها أما جيلا أما تن وحن بناء آدم كأنا حين كل خاف ده وحبو imagine كراين كراي وحبو ملا أول كرا لكن سمعت السبب الله السبب هذا اللغة إن الله قاضينا أنا هبلها برا يا ورد يمكن تيجيك هو ده حويان إن هبلها برا هبلها هذا اللغة اللي بالقرينا يو اللي لي هي راتسن هبلا يوسميه هبلا يدك الوسميه هبلها صار تقوم يمسنا برا حياة شو ده كله واحد برا حياة إنما كان فنانيتها فنان كده عندنا معها
baydhabo tagayaa boosaasu tagayaa cidna ma waa runiso sidaas oo kale suugaantuna ma aha muxuu hayaa wax meel ku oodan ma aha kulka ma jirto sabab uu caayo meel kale uu caayo Soomaali degto way dadka heesiisa dhageysta ee anaga gabayga iyo heestayada dhageystuun bay kamid yihiin dadkan kalena ma ogtahay dadka kulka anaga waa dadka iyaga isku wada mid uun waxaan filayaa gabdho badan oo iyaga qudhooda iyagoon dee kuwan hal abuurka ahayn laakiin jeclaa talo waa inaad heestaa wax ka tiraahdo inay hubka dhigi doonaan oo ay oranayaan heesta marka ay fahmaan sida uu weersamaba sheegay abwaanku imikana heestii waatan iyo muuqaalka iyo codka marsan daawasho wanaagsan maanka umaruni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin qoraaliyaan helay rara awrta ruuxdayda iyo maanka umaruni raystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin qoraaliyaan helay rara awrta lahashada ku soo ridatay rarankeedu raqba waa raggeedii ma ku riiqay lahashada ku soo ridatay rarankeedu raqba waa raggeedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan sabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka in rumaystay bay dumar rabbaystaane sabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka aan rumaystay bay dumar rabbaystaane ruxlo orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo ruxle orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo
وشيق نفتادينا حقيراتسن يقرب حنكاقينا حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن وشيق نفتادينا حقيراتسن يقرب حنكاقينا حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن وشيق نفتادينا حقيراتسن يقرب حنكاقينا حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن ودي قريوتوني حقيراتسن waxaan filayaa inaad si fiican uga bogateen waliba muusigaasi iyo laxanka weersame uu abwaanku markaasi ku laday mar kale aan dib kuugu soo noqonayaa had iyo jeer tan oo kaliya ma aha suugaantaadu waxaad moodaa inay muran dhaliso oo qolaba meel ula kacdo dadka maxaa u malaynaysaa inay taasi sabab u tahay in waayo gabaya iyagu jiray heesahan oo kale iyagu jira qof walbaaba waxbuu isaga fasirtaa maxaad u malaynaysaa taas oo kale in muranka ay abuurto horta muranka muxuu haayay kol kasta sawir baan leeyahay sida aan aniguba dareemi karayo mutadarrifa yani dhinaciga qof xag jira imika hay raadsan waxaan noqday qof mutadarrifa oo yani xag jira oo dumarka aad u karbaashaya oo ku kacsan ilaa xad ku kacsan هذا وابه هستي كوادين لهاي وح ليريبه حتى أنا كل كيبه وح الله يقول لي بالجري حاجة كله محو هاي حاجة واحد نقطة قبايضة مركز أنا وحنا هاي أنا محو هاي وح الله يقول تري علينا أما ولي به معارض بيدتكو حاجة محو هاي إن باي أركت تطوي موضع أركان معارض كوا قف كحيل كدوني يب محافظ كوا صار لك عليها لكن سقف كسك سفليان كي عادي معارض يا محافظ من ما قف سكان نولده إن قبائي باكر اسمه قبائي جنايات سجال شوابود بنور تكررنا يا أو كده بيجي وصدق هستنا خلصنا لقى صوت لقى صوت شوابي أو وايو حلير خيين دولة دويرري تبي تناني كينتي دولة تعاشق سنة تغيريا شيء ده أيام حوهاي إن كوجا في أركيسي دبتنا يقولون إن خلنا واحد يأركيسين أنا نقول حكوا تاجن هو دبتنا ويتاجريس كاسني سكون شوابه حصولها إن قبل يبقى شري سكون قبل يجي جنا إن قبل يجي جليليو أو إسلا سيدات قف بام فكر أوجه هي مكيلا أو شوابه كسمية قارلي أنت تكون تهريبا هذا رأينا سا إسكت شو محل شوقي يصوتن مش ولا dalkuwa laaqaya ee waa laaqaya dalkay taad lahayd way gobba tahay mooginteeda guriguna kuma baahan gabaygaasina wuu jiraa laakiin se sababta dadku had iyo jeer aan noqday wax qof muran suugaantiisu dhalisay oo lagu murmo wixiisa laba mid uun bay noqonaysaa aan isleeyahay anigu aqligayga yara gaaban markaan isticmaalo horta mid waa mid ma filayo inaan horta ahay qofka ugu aqliga badan leh dadka wax gabiya haddaanan ahayn ka ugu liita waxaan ahay kuwa ugu liitan ku jira saan anigu isleeyahay aniga islahaa sidaan anigu isleeyahay kolkaa sababtu waxaan u maleeyay ma adiga qaladaad sameeya oo suugaantaada qaladaad baa ku jira mise adiga waxa jira meelo gaara oo cuskanayso suugaantuna sideedaba waxay ku qurux badan tahay day horta suugaani muran dhalin weyda suugaanba ma haba oo qof waliba sidoo doono u qaadan waayo waa kii hadraawi lahaa isagoo hal kaliyay dadku harag shabeeliyo dadku harag shabeeliyo ka dhigaan hariiriyo ninba sidoo yaani u jecel gabaygiisi hal abuur waati ku jirtay ma wada hayeen ninba sidoo jeclaysto gabayga u qaataayo halkii uu doonay u buuxiso mid bay siyaasad u buuxinaysaa mid kale u buuxinaysaa muxuu ahaay jacaylo mid kale u buuxinaysaa waayaha adduunka kale la isaga jira ninba meel bay u buuxinaysaa horta gabaygu waxa la yiraahdaa leave something for my imagination aniga wax iiga tag qofka uma wada sheegaysid
waxna waa la saafaabay Soomaalidu tiraahdo waxna waa la saraa sideedaba suugaanta waa la saraa lama saafo ha wax kasta ma dhigdhigi kartid laakiin sawaad u saraysaa sababta aad ugu saraysaana waxa weeyaan inuu isagu inta kale qofkii leen aqli buu leeyahay waxaad u ogolaanaysaa inuu maskaxdiisa fidiyo oo dhinacyo badan ka rogrogo markaasay macna samaynaysaa inuu ogtahay waa sababta aniguna had iyo jeer waan ugu talagalahaa inaan dadka muxuu ahaye ta kale suugaantu waxay muranka u dhalinaysaa hayraatan oo kale waxay muranka u dhalinaysaa waxa jira imika tusaale ahaan dad heesaheen caadiga ah soo qaadato waan ku jecelahay iyo anaa ka daran laba marka lamaanahu wada qaadeen inta badan heesuhu saasay u badan yihiin tusaale kale waxa jira calaacalka oo kale heeseen uu ku badan yahay aniguna waan jecelahay calaacalka heesaha calaacalka heesaas aad bay maraan aniga qof kaliya marka ha way maraan waayo suugaanta ugu quruxda badan lihi waa calaacalo waa kii lahaa dan gabayga uurkoob ku yaarami ka keenin calaacalku waa tabasho soo maaha gabaygu waa dareen suugaantuna waa dareen inta badan dareenkuna wuxuu ugu qurux badan yahay markaad wax tabanaysid wax adiga uurkaaga ku jira aad soo bandhiganayso markaasay halka ugu sareysay laga gaaro waa sababta calaacalku ugu qurux badnaaday ma ogtahay imika labada mawjadood bay aad u batay mawjad kale jirta arooska heesaha aroosyada oo kale way badan yihiin iyaguna suugaantiyo intaa ku dhex wareegaysa واي أول هي ساها فورشة واحد اللي يقول حركة جري رواية هي فورشة كل ذي لوين يسوي كسر عنا يسا ولا بس كده هي رهتنا وكنا وإيري كده إذن مركز كسر بحضه خل خاب وحلونا يا لو جت شيء لأن الرواية دي كنت تكتمل تكتمل سيدنا يا الله 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 يا وسبب تاي مرة كوكا أنتي وين الرواية الله سعما في ليا يدو قبايا ده نقطة قبايا ده isku fiicnin horta dadka amaana isku ma tiriyo mana jeceliina noqdo nin madaxa iyo nin waxaysta iyo mid kale inaan amaana ma jeceli mana jeceli inaan waana jecelahay inaan runta sheego inta hadii la iga goynayo runta sheego waan jecelahay waana mabdaan leeyahay de waana mabdaan kaga dayanay intii gabigiisay aniga iga horeysay de oo sunnay dhigaan iyagu waana mabda ilaahay uu jecel yahay oo inaan raali galiyo ilaahay mar kasta muxuu haayay waa mid aniga ii go'an oo meelii taalo aan mar raba laga yaabo maxay aan nogashay bulhayn oo daanan gorgortan ka gali karin taasu sababta keentay inay gabayadaydu noqdaan kuwa had iyo jeer ka balcado kala noqda waxa weeyaan anigu waxaan isku arkaa inaan runta sheegay had iyo jeer halka kuwa mucaaridaya waxa weeyaan kuwa kooxda anigu aan isleeyahay xaqay ka soo horjeedaan taageeraysa ayaan saasan anigu arkaya iyagu haday doonaan baadil wada arkayaan laakiin saanu saasan isleeyahay inaan wadana waan isku haystaa waa sababta keentay inuu gabayga isagu muranka keeno waan gartay tan heesaha waynu ka soo noqonnaa dhanka gabayada bada xasuusa waynu u imanaynaa inkastoo jiraan gabayo aad u tiro badan oo adigu aad tiraso haddana bal waxaynu ka soo qaadanaynaa mid amba laba gabay baa jira gabayadaada ka mid oo la yidhaahdo hogaamiye waynu garanaynaa macnaha hogaamiye laakiin adigu ahaan muxuu magacaasi u xambaarsan yahay muxuuse ka hadlayaa gabaygu hogaamiyuhu aniga iyo dadka sida ay u arkaan boorta hogaamiye waa indhaha iyo dhagaha dadka qof hadduu dad hogaamiye u yahay inta badan dadka hogaamiye samaysta dawluhu inta badan ma leh hogaamiye hadduu qof hogaamiye yahay waa indhiyo dhago kalu la mid yahay waan gartay indhahaagan iyo dhagahaagani haday xumaadaan waxna ma maqli kartid saxsan waxna ma arki kartid saxsan waxa tahay qof indhiyo dhagaba labaad noqonaysaa waa kii annaasu calaa diini muluuki dadku waxay haystaan diinta boqorradooda haday boqorradaadu gaala noqdaan kaniisad bay ku dhisayaan khamriga ay ku banaynayaan ilaa awoodiiba haya qofkii kolka dadka oo dhami way gaaloobayaan hadduu boqorkaagu boqor islaam noqdana dadka oo dhami way ku hagaagsanaanayaan moogtahay saamaynta nolosha dunida uu ku leeyahay hogaamiyuhu wax ma aha mar raba muxuu haayay la dafiri karo waana عليه أفضل الصلاة والسلام نبي محمد هجاميها هجامية تقالبوها هجامية دينات بوها محاي هجامية تقالوها هجاميها هجامية رسالة سيدوها ويروح هجاميني ومنها تشكيسي أيمان تبى هجام يعني كو حران تدرك الإسلام كهودا ونلا شو دي كجانا يا هذا بقى تدخينه هجامية همر كذي مكياكتو وحضر كيسا كل كابا inaga waxa had iyo jeer inagu batay ama say inagu badan ba hogaamiyaha la dhaliilo way inagu badan yihiin dadkeenu aad bay ugu badan yihiin sababtuna waxa weeyaan horta anigu dadkan anigu dhaliisha saara waayo dadku iyaga wax
dadka beera garmaqaatayaasha dadka beera ruux quran waa ka daraawi lahaa qof kasta oo bulshada kamida wuxuu yahay waxa ka dhiga dadkiisa laakiin se haddana marka qofku kaalinta hogaamiyenimada qaato ee garashana ilaahay uu siiyey inuu isagu haday dadka isaga haddana muxuu hayay hogaamiyihii dadku waxa weeyaan waa laba fallaarood oo iska hor imanayo midba midka kala saameynayo dadku hogaamiyaha way saameeyaan oo haday wax dhibaato ugu gargaraan wax isku qaataa inuu adduunyada isagu leeyahay sidoo kale muxuu hayay isaguna dadkiina uu lumiyaa labadii dhinacba waa silsilad iska saameynaysa ma ogtahay waxaan isku dayay inaan sheego bal hogaamiyaha fiican aniga ayad quraanada ma aha gabaygu iyo waa aragtidaydii inta ila qabtaana way ila qabtaan inta ila qabina way ila qabtaan hogaamiyaha fiicani waa qofka nooceeya waa qofka sidee u dhaqma waa qofka maxay laga helo waa qofka dadkiisa sidee u yaani hogaamiyaha fiicani hogaamiyaha fiicani waxay maasadu leedahay hogaamiyaha fiicani waa qofka nooceeya waa qofka sidee u dhaqma wuxuu yiri ninkii la oran jiray amiirul muuminiin khaliifkii shanaad baa la yiraahdaa Umar bin Abd Aziz wuxuu ahaa waxa la yiri waqtigii uu haystay muxuu ahaayay waqtigii islaamka haystay marka afartan khulafada laga reebo Umar bin Abd Aziz inaan uu Umar bin Khadaab uu yahay baa dhashay isaga waxa la yiraahdaa amiirka khaliifka shanaad ee khulafada raashidiinta lagu tiriyaa wuxuu kula dardaarmay dadkii ka hooseeyay kunu ducaat Allah wa antum saamituun يعني إذن كون أمسن كودت كإله هاي دين تقوي ريا النقطة سيكون إنسان نقولنا أنا وان هاد لايبا مركز يكون أخلاق دينه هالنقطة كودت كوي ريا وأنا دعدي ماليزيا إندونيسيا وتمادر الخاصية كم تخيلنا ما أنت إسلام كا ماليزيا ووطن كوي إسلام كبدن له وح أي قصة إسلامية سيف لو لم تجين عندنا الله ما درن كلية عربية أي كلا جناح سنين هبدأ كودي مركز أركان بس كا إسلامية كل قف كهجاميه هرتا dadku inuu ku dayanaya tusaale soo qaadanaya qofku inuu noqdo qof saas oo kale u dhaqmi kara waan gartay waxa maansadu ay leedahay Muuse oo habeenadan hawraarta maansada baalmaray hogeedii gees dhigay hubkeedii balse hoota ma noqon mana dhiman hankaygii mana dhimin haroobkii run u heelintaydii wali waa halkeedii habrashana warkeeda heemaalka jiiftada qaar iga horeeyo hiba lagu manaystaa heemiyay duxdeedo waa huubaheedii waxaan heelka soo dhigay marka la xumo la huursado samuhuna habeensada garashada hog loo qodo hinqashada dharaaruhu saban aakhir heegmaan wuxuu yiri hanuunsama nabigii haboona himilada dad leeyahay alayhi salaatu wasalaam himilada dad leeyahay duul baa u soo hara hawadoodu been iyo damac iyo hunguri tahay hilinkay ku seegaan harawsiga ismoodsiis dadna way haleeyaan dad ma kala hambaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaska iyo halasuhu ku yuuro iyagoo habeenqada codka ii hibeeyay la dhex tagay hinaasuhu ma hogaamiyo noqon waxaan xasuusanahay bari halkan ay ka dhacday roob la'aan abaari dhacday imika 5,000 litirka biyaha hawdka imika burco kale 5,000 litirka biyaha ka ha xisbiyadu halkan waxay ka doonayeen iyagu ku dagaalamayeen xisbiyada hal la furo ayay iyagu ay uga dhamayd 5,000 oo shilin marka litirka biyo yahay foostadu intay noqon karto waad garanaysaa dadku halkaas u maray dadka la doonayeen hogaamiye loo noqdaa isagiina dadkani macna uma sameynayaan iyo haraadkoodii waxa macna u sameynaya aniga xisbi si aan u samaystaa la furo xisbiyadii dabeetana lacag baa lagu bixiyay markii la lahaa la soo sameeyay research in la furo iyo kale $100 baa lagu bixiyay lacaga $100 biyo intee la dadka ugu goyn lahaayeen yani wixii ahmiyad u ahayd inaan ahmiyadii la si waxyaabaha saakeenaya hogaamiyahani ma yahay kii dadku lahaayeen dadka matalayay ee ay ahayd in baahidooda ka warramo hadda heeriyadii cunay hafar baad ku nooshay hiilkiyo kalsoonida hanashadu ka xeel dheer dadka inaad hanataa way ka duwan tahay inaad hesho inay codka dadku ku siiyaan way ka duwan tahay inaad dadka hanato waxa waan hantay iyo waxa waan helay wax kala laba waad heshay laakiin sabab way kartaa laakiin hadaad hanato dadka qulubtooda daadigu galeysay ma ogtahay sumadaha hogaamiye lagu hayb yaqaana waa hayal samaantiyo kibir laga hayaamiyo uwashada xaqiiqda iyo habka dhaqan adoonnimo hogashada ilaah garad dadka kiisa hodanka iyo hebelka caydha ama kiisa hanadka iyo soomahooyda heeda uuna suran tahay wahar cayeegtaan kana caska iyo kafariidka waxa la waxa soo dhami hogaamiyaha waa ay ku soo hiranayaan ma ogtahay ku darso harkiisana horma gaara baan degin dad gaara hogaamiyuhu dawma xidhna huga suudni qaatiyo inta shaalka haysuun hadalka kama guro
in madaxdeena loo sii daayin baa laga yaabaa maanta nin xaragoonaya ama nin wax haysta laakiin se state house-ka kililka waxa la waxaan oo dhami dawlad dadkiisii ma ogtahay kolka qof aan dadkuna u kala socnayno inta wax haysatay iyo inta suunaanay isaga u tirsanayn huga suudnin qaatiya inta shaalka haysun hadda hadalka kama guro inta hayla duug iyo calal hoolmay sidatiya danyaraha hal soo biday hadda heegan kuma diro ka hiro u diido kadinkiisa ku handada kabaqaadku heestiyaha hayda kuma sabo dadka oo haraad qaba sicir bararna heemiyey guulwada habawsha hoostiisa kama tuma heelada barwaaqada waxaad moodaa madaxdeena in kolka alla kolku qofku xil qabto information oo dhan baa laga jaraya isaga iyo dadka la kala ilaalinaya dabeetana inuu ogaado dadkiisu xaaladda ay ku jiraan baa laga ilaalinaya dabeetana warka inta yara fiican u baa loo sii deynaya maadaama aanu isagu ahayn qof dadkiisa oo dhexgalgelaya warka inta yara quruxda badan u baa loo sii deynaya barwaaqada dhacday laakiin se waxa laga ilaalinayaa inuu arka intii kala laga ilaalinayaaba ilaa uu aakhirka soo baxo meeshii isku hurushowday kolka dad baa u xil saaran ee ka ilaaliyaan muxuu haayay in qofkii ka ilaaliyaan informationkii iyo xogtii saxda ahayd ee uu heli lahaa ma ogtahay iyo xaaladii dhabta ahayd ee uu dadku ku jiray kabaqaadku heestiyaha hayda kuma sabo dadka oo haraad qaba sicir bararna heemiyey guulwada habawsha hoostiisa kama tuma heelada barwaaqada heer baa la gaadhaa haybhaybta reerkiyo hindisaha qabiilkaba hanku kaaga dhaarto himilada dad guud iyo dan guud iyo dadka horumarkiisa iyo hilan toosan raaciyo ifku waa habeenne halhays fiican reegun halgan kuba uu ka yahay qofka hogaamiyihii marka dambe heer wuxuu gaadhaa waxa uu dagaalamayaaba uu yahay adduunyada legacy baa ka hadho qofka magac baa ka hadha magacaasi uun oo dabeetana hor ilaahay wax u wanaajiyo magacaasuuni ha kaa hadho waana markay ugu qurux badan tahay ma ogtahay heer baa la gaadhaa la dagaha habaabiyo dulmanaha la heeriyo deganaha hungoobiyo qatanaha hanqaarmiyo hooyada danleydii hiilkaa filaan ay kugu hooda sheegtaan oo ay ku yidhaahdaan mar alla marka qofka la dulmiyo uu cidda u xasuustaa uu hogaamiyihiisa noqdo oo mar alla marka muxuu ahaye sida aad aragtay maanta Yurubiyaanka oo kale haddii Somaliland maanta rabshadi ka dhacdo kolkaaba dadkoodii ka daadgureynaya dadkoodu kolkaaba waxa niyadooda ku soo dhaca waa maxay waa dadkii xilka u hayay hogaankooda hayay ayaa iyaguna kolkaaba uga soo jawaabayaan dadkoodiiba meesha ka daadgureysanayaan qof kamid ah haddii meel lagaga xidho hogaamiyaha way u tilmaaman tahay qofkiisa salku ku xidhan yahay way wada og yihiin kolkaa heer buu qofkii gaadhaya qofkiisa xitaa dulmiga la dulmiyaa oo xasuusto hogaamiyihiisii uu yiraahdo kaasa ku heelinaya ma ogtahay heer baa la gaadhaa dadku yahay hubkaagii marna yahay hugaagii hantidii iyo naftaadii noloshii halbeegii hogoshiya daruurtii hadhiciyo ogbaadkii humaag baadi socdii hawa aan la'aanteed habeen aanad barideen heer baad gaadhaysaa ad ku sixir goosanaysa dadkaaga oo maalintay dadkaagu ay dhulka ka taalo adna dhulka ay ka taalo maalinta kale dadkaagu ay wax helaanee ay baraaraha ku jiraan adiguna aad baraare ku jirto oo noloshaada dhanba waxa sixirkeeda goynaya uu noqdo dadkaaga ayuu qofkii marka dambe u gaaraya heer baa la gaaraa dadku aan la haystiyo kii haystay kala noqon oo heer buu qofkii gaaraya dadku aanay noqon kii haystay iyo kala haysto laakiin se qofku uu yahay isaguna qof dadkan wax u haya oo wax u ilaalinaya oo wax u dhowraya oo iyagu xisaabtankoodu isaga muxuu haayay suran yahay ayay qofkii u noqonaya marka qofku dadkiisa saas oo kale u dhaqay intaas oo kale uu noqdo dabeetana heer baa la gaaraa hadalka tiraahdiyo weedhaada haadiye shimbiruhu higaadshaan iska daa dadkaaga xitaa haadiye shimbiraha hadalkaaga higaadinaya waxaad noqonaysaa dee iminka sawirka madaxweynaha gidaarada lagu dhajiya bal ka waran dadka sawirka madaxweynuhu quluubta ugu wada dhajisan yahay waa halka ugu dambeysay qofku gaari kara ma ogtii heer baa la gaaraa hadalka tiraahdiyo weedhaada haadiye shimbiruhu higaadshaan heer baa la gaaraa hurintaad la nooshahay kugu soo hirtaan ay ku hareer istaagaan heer baa la gaaraa haybadiyad karaamada rabbi kugu hagoogo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaaraa hodannimo adduunyaha tigaada maalmuhu lurba aanay kugu hayn xoolo la urursadiyo waxaasu aanay macno badan ku lahayn heer baa la gaaraa hor alliyo xilkaa gudo kaa yahay horaalkaa heer baa la gaaraa adiga iyo hubsiimadu isku hooye noqotaan heer baa la gaaraa hoos ruuxa kuu dhiga hawadkiisu noqoto hamigiisu kala kaco markaad qof saa u dhaqmaya noqoto heer baad gaadhaysaa qofka hoos u dhigis iraahdaa kugu daalow heer baa la gaaraa waayeel habsoobiyo wiil haadka laaca tusmada iyo hayaanka iyo talada iyo hogaankaba ku wada hibeeya marka dambe waxaad gaadhaysaa heer aan qof xilka kugu soo doontaaba aanu jirin waayo intay u baahnaayeen baadaa qabtay de oo aanay jirin ba cid kugu soo mar hadduu hogaamiye loo wada han weynaa haramaha la tuuriyo
hubaha la sayriyo hebelada cambaarta leh isa soo hareer tubo hunga iyo inuu yahay niman hawsha wadi karin waa hal lagu ogaan karo yani inta aynu ka soo sheekayno dhan waxa weeyaan qofka hogaamiye markuu saa u dhaqmo qofka saas meesha sare u gaaro noqda laakiin se hadduu dadka ka dhex gurto inta xun oo hareerihiisa inta xun dhigto oo dabeetana dee intaa ka ilaalinaysa informationku inuu gaaro hadduu hareeraha iska dhigo heer buu marka dambe gaaraya dee qofku la naco oo dadkii ay hiifaan tusaale ahaan dee udubba markhaatika revolution buu udub haddee wixii lagu riday mu ahayn lagama codayn maayo 50% way adag tahay inuu xisbi geliyaa 100% helo labada kale marka la isku wada daro يعني dadku saasoo kala hadii lagu hiifaya marka ku talin weydo waxa iyagu rabeen mar haday habaaraan maatadu higaadshaan ama hiifa kuuligu ninka hogaamiyaha haday inta liidata ee masaakiinta ee aan waxba haysan iyo danyaraha iyo haday kuwaas ka cawdaan cabashadooda de ilaah baa jira muxuu ahaayay halkan Soomaaliland la iska maamulay dhulka inagu weynu rumuud baa inaga leeynagu hagayay de xagga sare codkoodu iyagana tagayaa dabeetana qofkaas mar haday habaaraan maatadu higaadshaan ama hiifa kuuligu waa habeen madow iyo gudcur soo hamaahsaday mana laha wax haybada waanu hoodo daran yahay mar haday danleyda iyo miskiinka iyo cawdaan inta kale de lacagtooda ku qabato ilaa meelaha si galgalayaan haday inta liidata ee meelna aan tagi karayn haday maalinta cawdaan ee aragto masaakiinta iyo danleyda iyo kuwa soo cabanaya ayaan taawiyaaba wataay waxaan filayaa dadkeena daawanaya xilligan inay si fiican markaas ay uga bogteen kulli wax kala su'aalo laga weydiiyo waxaan filayaa inaanay ku jirin hase yeeshee bilowga gabayga waxaad ku halqabsanaysaa Muuse waxa weeyaan saaxiibkay Muuse Yuusuf Kaamil baa la yiraahdaa saaxiibkay Muuse Yuusuf Kaamil maalintan gabayga sameeyay buu ag fadhiyay hawaaye hadhow baa la oranayaa Muuseyaashu way badan yihiin Muusuhu ku halqabsaday kale isma naqaanaba there's no reason aan ugu halqabsadaba qofka waa tahay